taageerayaashiisu waxay ku naanaysaan Justin Bieber ka cusub. Sharma Boy oo beri darbijiif ahaan jiray gabaadna ka dhigan jiray gidaarada wuxuu noqday xidig caan ah oo dunida dacal ilaa dacal looga durbaantumayo si weynna daayartu uga daba dhaceen hibada faneed ee ku duugan heesihiisa hirgalay. Sharma xifaaltankiisu wuxuu xasaasiyad ku riday shucuubta qalbiga xaaran ee ciyaal xamarka loo yaqaan oo taageere u muujiyay markii burhaanta fankiisu ka burqaday buulo xubay iyo buulo absuge oo xaafadaha xamar ka mid ah. qudhiisu ma dafirsanaa in dhallinyarada caasimadu sacab iyo sawaxan isugu dareen xilligii uu soo shaacbaxayay ee magaciisa iyo muuqiisa aan la aqoon, mana qarsado jaceylka uu qabo magaalo madaxda dalka ee Muqdisho. waa tuu muusiga ugu hagar baxay ku raabay xamar malabay kaama maarmo iyo muuq bilana muunad wacana Muqdisho waa muraayadeennii. meeshan ku barbaaro magaca iigu baxay Muqdisho macaan meesha laygu gubay meesha layga rabo madaxa laygu sido xamar malabay kaama maarmi karo ahantii macaan magaca jiro. haddase wuxuu tirsanayaa in laga xigsaday halkii xuduntiisu ku aasnayd lagana riixday ka mid ahaanshaha ciyaal xamarka laabta xaaran, taasoo keentay inuu ku cara burburay taageerayaashiisa xamar isagoo ku faanay isri iyo farax haybtiisu inay tahay Puntland. horey wuxuu uga xeeladaystay hirar himilada fankiisa quusin gaaray iyo habdhaqanno dhaawici gaaray mustaqbalkiisa. fadlan like saar muuqaalkan, haddaad noo sheer garaysana waxaan goyn doonaa malaayiin mayl. mahadsanid. Sharma Boy oo shumaca fankiisa ku shiday shahaadadu macnama leh ee ha shaqayso isagoo camirtay meel qashinquba ayaa ilayska u shiday mucaashaqiinta raabka. maalintaa ka hor muu ahayn sharmaakaha shidan ee shucuubtu ka daba dhaceen, waana goortuu sida weyn u shaac baxay. waaga ka horow wuxuu ahaa nimay fanaaniintu quursadaan fankiisa ku sifeeyaan mid faaruqa falaadaya ama madhalaysa. suxufiyiinta telefishinadu iridaha ayay ka xirteen, wayna la yaabi jireen markuu ka faalloodo jaceylka uu fanka u qabo. da'yarkan dibjirka ahaan jiray ee la yimid diiwaanka dahabiga dunidana sida filin waaga ku qabsaday. kol uu baagamuudo ahaa mooye wuxuu ahaan jiray nin nolosha u dagaalama, geerash gaadiidka lagu dayactiro ayuuna ku maarayn jiray nolol maalmeedkiisa. duruufihii dabray ayuu la dagaalamay kana dabaashay. jacburkiisa fanka ayaa judhii hore ku bilowday bedelidda heesaha caan baxay, dadkuna waxay ku baraarugeen heesihiisa oo cunug iyo cirooreba la xifdisan yahay. dadkuna si lama filaana waxay ugu baraarugeen heesihiisa oo cunug iyo cirooleba ay xafidsan yihiin, waxaana lala ashqaraaray sida degdega ee yarkani ku kasbaday malaayiin mucaashaqiin faneeda. muddo kooban wuxuu dusha ka maray fanaaniin hortii caan aha isagoo kasbaday magac iyo sumcad mug weyn ilaa la barbar dhigay fanaaniinta heesaha hip-hopka ee Kanye West iyo The Rag. wuxuu si xeeladaysan uga gudbay mawjado adag iyo mucaarado xoog leh oo uu kala kulmay qaar ka mid a dadka baraha bulshada caanka ka ah kuwaasoo ka kacay qabiil aflagaadayn. waagaa wuxuu ku qasbanaaday inuu ka hayaamo xamar oo ahayd halkii fankiisu ku hana qaaday, wuxuuna u diga rogtay magaalada Garowe oo noqotay magaalo kale oo fankiisu ku bulaalay. waayo uu masraxyada Puntland macallin ka ahaa madaxdana u shidi jiray. dabadeed wuxuu cagta saaray dhabaha guusha oo uga bidhaantay galbeedka tallaabsaday isagoo hayaanka himiladiisa u weeciyey waddanka Maraykanka si uu sumcad iyo hanti uga tabcado fanka casriga, halkaasoo uu ku soo qaaday heeso laba qarxay oo dhalintu ay aad uga daba dhaceen. bilooyin kadib waa kan mawjado kale dhex muquuranaya, wuxuuse ku duugay raalligelin uu soo duubay oo ay daba socdaan heeso hadda dabka laga soo qaaday. bishaaro u gaara qurbo joogta Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa qaata cayrta aan ku fillayn ama kuwa mushaharkoodu uusan kaafin karin qoysaskooda kala jooga dalka hooyo iyo qurbaha. mudanayaal iyo marwooyin, tani waa fursad ganacsi oo ay idiin soo bandhigayso shirkadda caalamiga ee Forever Living, taasoo laga leeyahay waddanka Maraykanka. haddii aad tahay jeeb miskiin aan qurbaha haad ku hayn ama aad tahay taraagle, tani waa fursaddii aad maalqabeenka ku noqon lahayd, waxaana ka shaqaysan kartaan idinkoo jooga guryihiinna ama goobaha shaqada. kol haddaad rabto dhaqaale dheeri ah ama doonayso inaad noloshaada wax ka beddesho, fadlan la xiriir manager Fawziya oo ah ganacsade guulaystay heshayna abaalmarino sarreeya muddadii ay ka mid ahayd Forever Living. kalena xiriir WhatsApp number +1 20 64 58 36.